dilo iyo wax la xiro shaqada dawladda saasaba ujeedka aan anaga waa dawladnimo. nabadoonku waxa uu si dhow ula shaqeeyay dawladihii ugu dambeeyay ee dalka soo maray waxaana wali loo arkay mid ilaashanaya dadaalkii xaq u dirirka ahaa ee dalka cadowga looga saaray isagoo ka hadlaya mowjadaha mucaaradka ah ee ka dhanka ah dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Kheyre ayuu sheegay in taasi ay hormuud u yihiin shakhsiyaad dana gaar ah wata wuxuuna taageeray mabda' kasta oo dawladda ciddii ka soo horjeesata xabsi loogu taxaabayo ama lagu dilayo isagoo oo muujiyay in taasi ay tahay maslaxo lagu badbaadinayo dawladnimada Soomaaliya ay maaragtay maanta ku noolaa karaan ciidamada mushaarkoodu helay oo shaqaalaha dawladda helay oo isla xisaabtan ay yimid oo iska warqab dawladeed ay yimid oo dadkii indhaha u furmay markii ugu horreysay wuxuu qaaday isbaaradii la dhihi jiray jawajeer oo dhibka Soomaaliya ka haysta wuxuu magacaabay ra'iisul wasaare daacada oo Soomaaliya oo shaqada uu qabtay la og yahay aan xisaabino dawladdu waxay qabatay iyo waxay beesaan xisaabino midda kale in wax la dilo iyo in wax la xiro shaqada dawladda saasaba ujeedka aan anaga waa dawladnimo dawladda wixii ka soo horjeedana waa naqaan indhaanu anaga waa furan waxaan ammaanaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha waxaan ammaanaynaa ciidamada anagoon kala reebin ku guuleystay nabadda oo ummadda Soomaaliyeed gaarsiiyay maanta inay habeenkii shaqaysan karaan ay ganacsan karaan ay socon karaan oo hididiila dawladnimo ay maaragtay maanta ku noolaa karaan laakiin muddo kadib markii xilka ra'iisul wasaare laga casilay Xasan Cali Kheyre nabadoon xaad waa ka ra'yi duwan yahay sidii hore wuxuuna u arkaa madaxweynihii uu noo sheegay in uu daacad yahay isla markaana wax badan ka qabtay dalka in dhimirka looga jiro oo uu dadka si bareer ah u laynayo waana xaadkii hore noo yiri dawladdu in ay wax xirto isla markaana disho xaq ayay u leedahay isaga waxaan leenahay dadkan iyo dalkan dhibaato uma cusba dictatorship uma cusba kaliya taliya uma cusba dhibaato badan ay soo mareen qof walba dhibkaas geystana taariikh xun ku dambeeyay meesha ay kuwii ku dambeeyeen meel ka duwan ma aadaysid taariikh xumada dhaxle haddaad xabad aadana xabad waxba ku qaadi mayso wax huba waaye adaa ku dhimana marka waxaan leeyahay hadda isdaba qabo yaan qorraxdu kuugu dhicin filla Soomaaliya haddaad qof wax garta tahay waay haddaadan garanna haddii wanka way jeer la biray indhihiis orada ma arkaan dad gowrac sugaya waa ku imaan doona halkaada ku sug ninkaas bahalnimada ka shaqeynaya ummadda Soomaaliyeed halkaas la dhex taagan xabadda oo sharci ilaalihiin oo majnuunka oo handicapka oo qalbiga ka jiran waa inay la shaqeyn dawladda Turkiga leenahay haddaba nabadoon xaad geedkii harka weynaa ee uu ku shir gudoominayay beelweynta Hawiye looguna huray naf iyo maalba ma waxa uu ahaa sidii uu darajo sare u gaarsiin lahaa siyaasi xigtadiisa ah soo tani uma muuqato cadaaladii qaali huurshe ee la joojiyaana banaan la jiifiyaana